filimkeena waxa uu ku bilaabmayaa dadkaas oo iska ilaalinaya waraabe halkaas taagan oo dadkun ah. kadib nimankii mid ka mida ayaa waxa uu furayaa sharaab soodhe leh. waraabihii ayaa fahmaya inay halkaa dad joogan markuu u imaado, laakiin wuu ka waayayaa. sidaan aragno hadda way kala baxsadeen, labada dhinac ayay kala istaageen. kadib laba nin ayaa isa soo raacaya. mid ka mida ayaa cadar isku buufinaya si uusan waraabaha usoo urinin, ileen haddii kale laba ayuu u kala jarayaaye. cadarkii oo buuxay ayuu ku dhammaynayaa gebi ahaantiisba. kadib waxaan aragnaa labadii kale oo iyagoo aad iyo aad u taxadaraya albaab ka soo gelaya. waraabihii oo ku wareeray halkay joogan oo meel halkana rafanaya ayaa waxaan arkaynaa kii cadarka isku buufinayay oo ku hoos jira waraabaha. kadib dhareerkii waraabaha ayaa wejiga kaga daadanaya. kuwii kale oo halkaa taagnaa ayaa ku dhahaya, ha nuuxnuuxsan uu kugu jira may sidaa maaha. waxay dhahayaa muuse ha dhaqdhaqaaqin, haddii kale waraabaha ayaa ku dareemaya. kadib halis ayaa geli kartaa. kadib mid dhalinyaradii ka mid ah ayaa waxa uu tuurayaa hilib caag ah si uu u mashquuliyo waraabahan eryanaya. kadib markuu waraabihii ku cararay hilibkii waxa uu ogaanayaa inaanu waxani hilib caadiya ahayn oo uu ahaa caag. kadib nimankii oo jaanis ay kaga baxsadaan helay ayaa waxa ay odaygii dhahayaan, meesha lafahaaga kala soo baxso, haddii kale 3 qaybood ha kuu kala gooyo waraabahan dadcunka ah. waraabihii oo dareemay meesha inay dadkii joogan ayaa soo eryanaya. iyaguna markay arkeen inuu soo eryanayo orod waxay hayeen ayay siidaayeen. waraabihii oo ka xanaaqay sida ay uga caqli badiyeen ayaa ayuu odaygii ku dhex dhacayaa kaariyoonihii lagu tukaamaysan jiray. kadib wiil dhalinyarada ahaa oo arkay inay xaaladdu hadda adagtay ayaa ku riixaya odaygii kaariyoonkii. waraabihii oo jaanis helay ayaa soo eryanaya. kadib odayga ayaa dhahaya istaaji, laakiin marka uu arkay sida uu eryanayo waraabuhu waxa uu dhahayaa shaqadaada wada. odaygii oo isku dayaya inuu waraabaha mashquuliyo oo uu kolba waxa uu arko ku tuuro ayaa labadii kale waxay helayaan albaab ay ka bixi karaan. waraabihii oo isku dayaya inuu qabto ayay u suurto geli waayeysaa. kadib odaygii ayuu kaariyoonkii la dhacayaa. iyaguna si degdeg ah ayay meesha uga kacayaa oo kuwii kale ayaa waxay dhahayaan soo dheeraya. kadib way gelayaan. sidaa ayay dameerku dhalay kaga badbaadeen. nacalaa wuxuu yahay ku yaa asxaabay, maxaa idinka khaldan? youtube-kayga booqda linkiga borofaylka saaran, koobi garaysta kadib googalka geliya. si awtomaatig ah ayaad channelkayga u tegaysaan. kadib sabskrayb saara, fiidiyoyadana wada layg gareeya. waad mahadsantihiin.